يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبابي الكرام، وحارب مانتا إن أن كهدله أركان الصلاة أما تيررك أي ليدهي صلاة. tiirarka ay leedahay salaada horta ma lahan tiro cayiman ee la leeyahay intaas weeye keliya ma jirto. maxaa yeelay waa isku khilaafeen culimmada fuqahada, waa isku khilaafeen tirada arkaanu salaa. maxaa yeelay qolob waxbay sheegtay, qolo waxay tiraahday waa 14, qolona waxay dhahday 13 weeye, qolona waxay dhahday 18 weeye, qolona 10, qolona waxay dhahday 10 weeye. marka waxaa weeye tiro cayiman ma lahan. marka haddii aad aragtaan qolo intaas sheegaysa mid ka mid ah, hala yaabina. qolo intaas ka yar ama ka badan sheegaysan hala yaabina, waayo tiro cayiman ma lahan. balse aniga waxaan wadaa qolada dhahaysa 10kaas baan rabaa inaan ka hadlo. rukniga koowaad oo tiirarka salaada ka mid ah waxaa weeye anniya, inuu yacni qofka niyo la yimaado. niyo waxay tahayna horeba uga soo hadlay. niyadu maxalkeeda ama booskeeda waxaa weeye qalbiga weeye, yacni qalbiga in looga niyoodo oo aan lagu dhawaaqin weeye niyadu. rukniga labaad ee ka mid ah tiirarka salaada waxaa weeye takbiiratul ixraam, inuu qofka la yimaado takbiiratul ixraam markuu yacni salaada xiranayo. markuu niyoodo kadib uu yacni u niyeysto salaada uu tukanayo waxa ay tahay, wuxuu la imaanayaa takbiiratul ixraam. takbiiratul ixraam waxaa weeye qofka markuu xiranayo takbiirta ugu horeysa ama Allahu Akbarta ugu horeyso ba waxaa la yidhahdaa takbiiratul ixraam. rukniga saddexaad ama tiirka saddexaad oo tiirarka salaada ka mid ah waxaa weeye inuu qofka akhriyo qiraa'atul faatixa, faatixada inuu la yimaado uu akhriyo. maxaa yeelay salaad aan la akhrinin faatixo waxaa weeye ansax maahan, salaad jirtana maahan. qof waa inuu akhriyaa faatixada. hadduusan aqoon waa meesheed, laakiin hadduu yaqaano inuu akhriyaa. rukniga afaraad ama tiirka afaraad ee ka mid ah tiirarka salaada waxaa weeye alrukuuc, inuu qofka rukuuc la yimaado. rukuuc inuu la yimaado uu rukuuco. rukuucna waxaa la yidhaahdaa marka yacni jilbaha la qabsanayo waxa la akhriyo waa waxaa la yidhaahdaa rukuuc. rukniga shanaad ama tiirka shanaad ee ka mid ah tiirarka salaada waxaa weeye alrafcu min alrukuuc, yacni rukuuc inuu kasoo kor noqdo oo yacni ictidaalka la yimaado. ictidaalkaas waxaa weeye samica allahu liman xamidah, waa rukniga shanaad. samica allahu liman xamidah inuu yidhaahdo weeye. rukniga lixaad oo ama tiirka lixaad ee ka mid ah tiirarka salaada waxaa weeye assujuud, inuu qofka sujuud la yimaado. sujuudna waxaa la yidhaha markii yacni wejiga dhulka la dhigayo. rukniga toddobaad waxaa weeye aljuluusu bayna sajdatayni
yacni inuu la yimaado fadhiga u dhexeeya labada sujuudood. Fadhiga labada sujuudood u dhexeeya waxaa weeye ducada la aqriyo weeye, rabbi ighfirlii ducadaas weeye. Qofka garanaya, qofkaan garanayn waa inuu bartaa. Tiirka kale ee tiirarka salaada ka mid ah waxaa weeye atashahud. Tashahudku waa inuu la yimaado, waa tiirka 8aad. waxaa weeye atashahud ama ataxiyaadka waa inuu la yimaado. Ataxiyaadka waa inuu la yimaado, waa tiirka 8aad oo tiirarka salaada ka mid ah. Ataxiyaadkan la sheegayana ma ahan kan hore ma ahan, kan dhexe ma ahan, waa kan ugu dambeeya, ataxiyaadka ugu dambeeya, kaas weeye ujeedada. maxaa yeelay kan dhexe waa sunno weeye, laakiin kan kale waa waajib. marka kan waajibka ah baan ka hadlayaa oo salaada lagaga baxo ataxiyaadkaas. Tiirka 9aad oo tiirarka salaada ka mid ah waxaa weeye atartiibu bayna alarkaan, in yacni lakala tartiibiyo arkaanta hadda aynu soo sheegnay, in lakala tartiibiyo, lakala dhigdhigo oo la habeeyo, yacni si ay iskugu xigaan lala yimaado weeye. Tiirka 10aad ee ka mid ah tiirarka salaada waxaa weeye atasliimataani, labada salaamo naqsi inuu la yimaado. yacni laba salaamo naqsi. Salaamo naqsiga waxaa la yidhaahdaa marka salaada laga baxayo waxa la aqriyo oo ah assalaamu calaykum waraxmatullah, assalaamu calaykum waraxmatullah. taas ayaa waxaa la yidhahdaa salaamo naqsi. yacni salaamo naqsiga hore ee midigta loo salaamo naqsanayo ka isaga waa waajib, laakiin kan labaad haddii aad ka tagto waa caadi, waa iska sunno, laakiin ka hor waajib wey, waa inuu la yimaado qofka. marka 10kaas tiirar oo tiirarka salaada ka mid ah baa rabay maanta in aan idinla wadaago. waxaa weeyaan asxaabtiinana ugu sheergareeya, baraha bulshada oo dhan ugu sheergareeya, imoga whatsappka iyo facebookyada iyo messengerka iyo ugu sheergareeya si ay uga faa'iidaan. khayrna waad ka heleysaan insha allah, iyo ajir baad ka heleysaan insha allah. waxaa weeyaan una sheega in ay subscribe saaraan, asxaabtoodana usii gudbiyaan. waa walaalkiin Abubakar oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.